maalmaha adduunyada midba wacyi gooniya waayuu muujinayaa Soomaalidu waxay masaafo iyo mus dheer soo jiba ma dunida shishadeediyo barafkay maanta ka shidan tahay Soomaalida waa ummadda kaliya taariikhda adduunka lagu xusay in laga helay dal kasto ku yaal dunidan aynu ku nool halkani waa Ruushka ama Russia waa wadanka ugu weyn adduunka waana dal marxalado badan soo maray balse haatan lagu tiriyo wadamada haysta awood caalami dhan kastaba ha noqotee Ruushka oo kamid ah wadamada dunida ugu qabo ayaa waxa nolol ka samaystay Soomaali badan waa barnaamij taxanayn oo noqon doona waxaana si gaar ah ugu eegaynaa nolosha guud ee jaaliyadda Russia ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baratay jaamacadaha waaweyn ee dalka Ruushka sidoo kale waxaanu isdul taagaynaa tacliinta heerarkeeda kala duwan iyo waxbarashada jaamacadaha dalkaas qaabkee loo heli karaa maxay bartaan ardayda Soomaaliyeed ee ku kala baahsan gobolada dalweynaha Ruushka Russian oo lagu tilmaamay inay yihiin dad xagtirina ama ay ku dhaqmaan cunsurnimada nooca casriyaysan qaabkay Soomaalidu ula dhaqmaan iyo qodobo kale oo xiiso leh waa Cabdi Askar oo idin ku duwaya qabowga Russia iyo qaybta koowaad ee barnaamijka waxaana inoo qaada dhigaysa wariye Nasrukiin Xashinuur وشوع ardayahay dadaalo dugsiyada waxbarashada u dareera oo taga hakadaahina waliga ardayahay dadaalo dugsiyada waxbarashada waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono xaaladda nololeed iyo qaabka ay ugu nool yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Russia inta badan dadka Soomaaliyeed ee ku nool caalamka waxay ka aaminsan yihiin wadanka Russia in aysan ku nooleen Soomaali hase yeeshee waxa ku nool Soomaali fara badan kuwaas oo u jooga siyaabo kala duwan hadii ay tahay waxbarasho ganacsi iyo sidoo kale inay deegaan ku joogaan halkan xilligan waa xilliga qaboobaha waxayna dadka inta badan aaminsan yihiin wadankan yaa wadanka koowaad ee adduunka uu qabo waxa eegi doonaa xaaladda nololeed ee dadka jooga halkan oo badan dhalinyaro kuwaas oo doortay inay ku noolaadaan halkan gaar ahaan kuwa waxbarashada u jooga waana Nasrukiin Xashinuur oo barnaamijkaaga la socodsiinaysa kuwaani waa tiro dhalinyaro ah kuwaas oo ku nool wadanka Russia waxa ay ku saaxiibeen mihnada waxbarashada oo halkan ay u yimaadeen waa magaalo kamid ah magaalooyinka waxbarashada ardayda ugu badan ay u joogaan wadankan Russia waqtigooda waxa ay ku wada qaadanayaan si ay iskula sheekaystaan oo kala war qaataan inta ardayda joogta badi waxay u joogaan laba siyaabo kuwa dawladdu ay soo dirtay oo waxbarasho scholarship u jooga iyo kuwa eheladooda ay ka dhiibaan waxaan wax ka weydiin doonaa Aadan Sheekh Saciid oo ah gudoomiyaha Russian Foundation oo ah madal ay ku bahoobeen dadka Soomaaliyeed ee ku nool halkan kuwaas oo ka saacida dadka waxbarashada u baahan iyo kuwa caafimaadka inay yimaadaan wadanka Russia nasra ku mahadsan tahay marka koowaad marka labaad waxyaabaha ugu kalifay inaan aasaaso Russian Foundation sababaha waxa kamid ahaa markii aan arkay kala yacsanaanta iyo sababaha oo markii aan u fiiriyay ardayda Soomaaliyeed sida ay ugu baahan yihiin inay is aruursadaan ama is dhaxgal midda kale labaad aan ugu fikiray waxa ay tahay in aan arday badan oo rabto inay Russia timaado aysan haysanin laakiin qaabkii ku imaadi lahayd weeyga ku imaadi lahayd iyo sababaha kale waxa kamid ah ardaydii markii ay yimaadaan ama qaabkii ku yimaadaan ba ama qaab dawladda ku yimaadaan ama qaab anagaba aan ku keeno Russia keento la qabsigii inaan ka caawino waxyaabo badan oo Russia fahankeedii sababta ay tahay meeshan English ma looga hadlo waa Russian language looga hadla sababaha kale oo kamid ah waxa ay tahay in community aan sameeyno oo Russia iska warhayn arday walba hadii cilad ay ku soo kororto ama hadii ay wax ay qabsadaan inaan mar walba ka caawino safaaradu way joogtaa laakiin anaga ahaan ayaa isxilqaanay oo waxa aan ardayda mar walba aan garab taaganayo ka warqabkeen wali waxaan ku guda jirnaa sidaan u xog ogaan lahayn ardayda ku nool wadanka Russia qaabkay halkan ku imaadaan sababay ku doorteen wadankan Russia iyo sidoo kale barnaamijka kooban aan ugu talagalnay in aan uga warbixino
raashiya iyo soomaalida ku nool markana waxaan soo dhaweynayaa oo aan rabo in wax ka ogaado waxyaabaha ku doorta halkan cabdifataax xasan cabdulle cabdifataax soo dhawow waxaan ahay arday minxa ah oo arday wax kamid arday nasiib ku yeeshay inay meeshan wadanka raashiya wax ka bartaan waxaana hadda joogaa magaalada Voronezh State University waxaana bartaa jaamacadda Voronezh State University ayaan bartaa waan jaamacad ugu weyn gobolkan aan joogno waa jaamacadda ugu weyn magaalada aan ku sugnahay waana jaamacadda qadiimiga ka mid tahay waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay wadankan marka yani arday kaliya aad tahay oo wadankan aad imaatid yani caqabado badan ayaa la kulmaysaa laakiin alxamdulilah ani waxaa meesha igu soo dhimay rag badan asxaab aan nahnay hore isku naqaani sida waxaa kamid ah sida Dr. Bashiir Cabdikariim Dr. Adam Saciid iyo saaxiibkay Cabdiraxmaan cabdifataax maadaama aad sheegtay inaad kan mid tahay ama nasiib ku siiyay ardayda minxooyinka oo yaala waxbarashada halkan ku dhawaad 2 sano halkan ku sugan tahay markii minxada ka helayso wadanka raashiya maxaa ka aaminsaneed halkan wallahi marka yani adaha marka waalidkii oo sheegay yani raashiina ayaa rabaa raashiina wax ka bartaa rabaa dhaho yani wixii ajir wadankaas maxaa ka doonaysaa wadan yani dadka Soomaalida badan waxay ka aaminsan yihiin raashiya yani wadan qawo yani oo yani lagu noolaan karo ay ka aaminsan yihiin marka anna ku adkastay yani inaan raashi soo aado maadaama sababtoo ah jecel wadan aan marba ku fikir jiray inaan wax ka barto ay waan wadan horumarsan marka marka كمسؤولية هان أرضية جود هان مركي وحبرنيسو شخصي وقويسكيس قفة تاكلين عيان أصاد دري لما قف سجارة نحبر الشذا العكتي ده ودي باي قفنا وقف دولة ده يكون تشنيس سيدا أديكو كله المسؤولية ده كاس على دولة فدرالك الصومالية واحد برنيسي عدو قطعي محيطه والله وكدو دورت مكي يعني شخصي كليس أو إمام مكاتها يعني العكتي بحسناي وكدو مكاتها يعني أرضية دولة صوتها دولة ودنك قوة الشناي ضدك دولة قوة حساب سنتهاي مركز إن شاء الله وحن رجينا يعني إنا يعني ودنكي أنا علم له أقون له إنا الله ودنكي وباين إنك جاهل بحي وحنا برتات مادة علمي برشة دولك جيولوجي ومادة ودنكي أد وباين هواي وأنا أرضي يعني وحبرشة صار من دكسي سري ودن كده يعني حاول يعني ميديسين أو كلينت إنجينيرين بيزنس وحسب لكن أنا وح يعني أمر بكمين جري يعني كدكسي سرقينا هنا يعني أبرتو علمي جيولوجيا وأنا كوهر قشي إن هم لا ذي هم جاي خلاص الحمد لله ما هذا توقعتي مركز أرض سكولر أنت بدن دتك عيك من سنين أما أرض وحبرشة من هذا العقلان تكوهر دولة دسيسو إن لا ضوق ما تدري برنايا بالكور بحي ما لا ضوق أرض راشي ما تمسك قفل بوح وجعليها أيودر والله قفل بوح وجعليها أيودرتي أنه حاجة على مادة جيولوجيا جعلاي الحمد لله ما أنت هو إلى ويساري أدو حي إنه أكليه إنه يعني إن المسدود بلاد كل شقيس المستقبل كده أودنكي أنا وقفت مدام صوت أودنكي وحوليه يعني معادن بدن خيرات بدن ويوليه هاي وإن شاء الله حنجعل إنها مستقبل كوفة أي أودنكي جابر عبد الله وهلي واحد كم تهددك قدام بسوق جاري وطن كراشيا جارهان مقالة فرانش ما حدوا ما تهلكان مركورو waxaan kaaga mahadnaqaa barnaamijkaadana igu soo dhaweysay walaashay Nasrikiin intaas kadib wadankan waa sida aad sheegtay waxaan ka mid ahay ardaydii ugu dambeysay oo imaatay waxaana u imaaday inaan wax ka barto sidaas daraaddeed aan wadankan u imaaday waxaan rabaa inaan diyaariyo takhasuskii qaybta caafimaadka haddii oo alla raalli ka noqdo markaad imaanaysay Russia adoo heli karto wadamo kale maxaa ku dooratay intaanan soo aadinin Russia waxaan sameeyay isku dayo badan oo aan ku baarayo wadamada ugu wanaagsan ama ugu fiican oo aan ka baran karo takhasuskayga sidaas ay tahay waxaan fiiriyay ama aan raadiyay wadamo kale duwan oo aad u badan sidaas daraaddeed wadanka Russia waxaan u doortay inuu ka mid yahay wadamada adduunka ugu horumarsan dhanka waxbarashada waliba gaar ahaan dhanka caafimaadka sidaas daraaddeed ayaan ku soo doortay ina imaatay halkan qaabkay u suurta gashay iyadoo badi dadka aaminsan yihiin in Russia dadka imaada ay yihiin dad ka sii tahriibay oo ka baxay oo aanan ku noolaan karin halkan qawaha waa sida aad sheegtay waa caqabad jirto oo nalaga aaminsan yahay laakiin nasiib wanaag waxa joogan meeshan dhalinyaro Soomaaliyeed oo iga caawiyay iyo sidoo kale waxa iga caawisay Russia
som Russia dhalinyaradaas ku midooday oo aad uga mahadnaqaayo maadaama qayb ka mid ah mustaqbalkayga ay iga caawiyeen ayaga iga caawiyeen inaan soo gaaro dalka Russia maadaama aad maqli jirta Russia waa dhulka qabowaha ama barafka haddeertaana aad ku soo aaday xilliga qabowaha ee barafka maskaxdaada waxa ku programsanaa ama aad ka aaminsanay qabowga iyo waxaad la kulantay farqi intee la u dhaxeeya xaqiiqatan aad ay u kala duwan tahay sababtoo ah cimilada aan ku soo koray ama cimilada aan la soo qabsaday marka hore iyo cimiladan waa cimilo aad iyo aad u kala duwan qabowga meeshan ka jiro waxa aan ku qiyaas aniga ma sheegi karo sababtoo aniga amal iyo dadka ila midka aad ay uga adag tahay laakiin ilaahay maadiis dhalinyaro naga caawisay oo waxyaabo aan ka xirano oo iskaaga difaacno aan naga caawisay nala soo nagaday aad joogaan aad uga mahadnaqahay anta xaqaanon diyaarada sameynay anta xaqaanon diyaarada sameynay ardayah dadkeeni waalidkiina hadeersado calanka dushiiniyo dalku waa idin sugayaa hagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo gunaanadeena barnaamijkii kownaa aan ugu talagalnay inaan xog uga ogaano habka ay ku nool yihiin ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Ruushka gaar ahaan magaalada Voronezh oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee waxbarashada ay u joogaan ardayda Soomaaliyeed ee halkan imaad oo anigoon sarkiin xaashin hore oo inta dib dambe barnaamij ciinkaana idin kula kulmaysa idin leh nabadiino dalku waa idin sugayaa waxaa jira su'aalo badan oo la isweydiiyo oo ku saabsan dhanka cunsurinimada oo lagu tilmaamo wadanka mid kamid ah wadamada ugu cunsuriyada badan caalamka haddaba Bashiir oo wadankan ku noolaa in ku dhow 8 sano ayaan ka wareysan doonaa